عليكم ورحمة الله وبركاته داوياشا هودا نغلا سocdo meel kasto dunida ka joogta waxa la soo gaaray xilligii barnaamijka arrimaha bulshada aan xilligan oo kala hawada idin soo mari jirnay meel kasto dunida ka joogtaanba waxaanu mar walba ka mahad celinayna inaad daawanaysaan barnaamijkan iyo waliba macluumaadka aad noo soo dirtaan oo isugu jira talo waano saxitaan iyo waliba dhiirigelin meel kasto caalamka joogtaan toddobaadkan barnaamijka waxaa noogu marti ah shakhsi mujtamaca Soomaaliyeed sumcad iyo karaamo iyo magac dheer ku leh ummadda Soomaaliyeed oo intaan waliba dagaaladii sokeeye aysan bilaabin ka horna Soomaaliya joogtay ama ku soo barbaartay aad iyo aad ay u garanayaan waa Cabdi Xaaq oo asagu ahaa goolhayihii weynaa caanka ahaa asagu ciyaaraha gobolada markay noqoto number 1 ka ahaa koobo fara badan qaaday Cabdi Xaaq ayaa wuxuu ku joogaa magaalada London booqasho gaaban waxaana ka codsanay TV-ga Universal qaybtiisa arrimaha bulshada inuu soo horfariisto oo waaye iyo taariikhdii quruxda badneyd oo soo martay dalka Soomaaliya gaar ahaan intuu asagu yaraa ama ciyaarayay ilaa iyo haatan wuxuu ka xasuusan yahay oo nala wadaago dad fara badan oo dunida jooga ayaan ogahay inay ku farxayaan aragtidiisa iyo maqalkiisa dadkii waxaan ka mid ahaa aan weligii la kulmin caawa ka hor laakiin magaciisa mar walba aan maqli jiray waana uga mahad celinaa qayb qaadashadiisa barnaamijka arrimaha bulshada Cabdi Xaaq Maxamed Axmed kusoo dhawo TV-ga Universal dadweynaha faraha badan ee adduunka afartiisa dacal ka daawanayo iyo Universal TV iyo maamulkiisa sida wanaagsan aad igu soo dhaweyseen aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waxyaag intaas la mid ah kuna sidoo kale markii Cabdi Xaaq la xasuusto ciyaarihii gobolada iyo goolhayihii baa la xasuustaa iyo koobkii badnaada qaadeen waan u tagi doonaa laakiin waxaan jeclahay inaan xasuusido marka hore taariikhdaada qayb ka mid ah Cabdi Xaaq waa kuwa xageebu ku dhashay xageebu ku soo barbaaray aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Cabdi runtii aniga waxaan ku dhashay magaalada madaxda gobolka Jubbada Hoose Kismaayo 1962 halkaas oo aan ku barbaaray abe ayaa xamar loo soo bedelay xamar markii loo soo bedelay dugsiyadii ayaan xamar ka dhiganayay ciyaarihii iyo iskuulaadkii waa soo wada ciyaaray xaafado waa soo ciyaaray alxamdulillah kadib waxaan noqday nin oo profession ka ah ee gobolka Jubbada Hoose magaalada madaxdiisa Kismaayo oo naadiga dawladda hoose oo macallin khariidi macallin uu ahaa aan ku barbaaray runtii sidaas ayaan sportiga ku soo galay ilaa aan meesha maanta aan joogo oo ilaahay keenay alxamdulillah rabbil caalamiin Kismaayona sida runta waxa ay qaaday 8 koob 8 kamid ah ayaan la qaaday afarna waxa iga qaaday goolhayi iga horeeyay oo la oran jiray Maxamed Barkaan Shaash iyo Cafiifi bin Shaakir iyo dadkaas qaaday loodkan anagana loodkii Maxamuud Yare Maxamed Muuse iyaan ku jiray run ahaantii taariikh weyn oo aan la ilaabi karin ayaan ciyaarihii gobolada ka dhignay oo dadka xataa waxayna dhihi jireen markii qaar dadkan ma dhargaan miya yani 8 koobood oo 16 sano lagu qaado waa garan kartaa waxay tahay alxamdulillah laakiin waxa soo dhan waxa noo sababay xeebtii dheereed oo Kismaayo ku taalay oo lagu ciyaari jiray kubadda cagta intaas ayaa aan ilaahay ka soo aan waxaan dinaqeynaa iyo dadkii na soo abaabiyo waxna soo baray insha Allah qooma adiga lagu qaatay inaad goolhayo u noqoto Kismaayo dareenkaagu wuxuu ahaa runtii 79kii ayaa naadiga dawladda hoose galay 80kiina ciyaarihii gobolada waa u xarooday laakiin second goalkeeper aan ahaa oo Jaahuur baa line up ka ahaa aniga waxaan noqday 81kii wali markii xamar la yimid oo beedhabo laga yimid ayaan si toos u galay line up ka lagu daray runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanaa oo xataa maalintaas aan garoonka galay dhinacii goolka ma ahayd dhinacii koonada iyo birta kale u dhaxaysaan dhex istaagay oo dadkii gadaal iga galiyay waayo waxa dad ku dhaco wax la dhaho feebarkaan bay dhahan Soomaalida laakiin waxa waa khalkhal waaye dadkii oo ka tar badan haddana maalinta waxa lagu daawanayay free furitaan ahayd jooro wiligeed soo bixinna oo Xasan Abshir oo ahaa barasabna oo gawaari ku soo daldalay dadkii meeshii la yimid garoonkii irbada kor u tuugto dhulku ma dhaceys iska dhaaf ul khalkhal maalintaas ayaa igu horeysay maalintaas aan galay wixii ka dambeeyay laakiin waa la qabsaday oo waxay noqotay inaan dadka aan khalkhal geliyo waxa gartay haddaan kula yara kaftamo garoonkii waa soo gashay kumanaan kulo ciyaar daawanaya fadhiya
magaalo markii xamar loo fiirisho ka yar wax badanna ayaa ka timid sawaxanka iyo qaylada iyo dadka qayladooda baa dabcan ku saameeyo shooga kugu dhaliyay inaad dhinac kale istaagto kugu dhaliyay islaamka dadku markay gobolada ka yimaadaan qaarkood magaalada inay isla qabsan waayaan gaar ahaan stadiumka waa wax dhici karo hadda adiga kugu dhacayo kale sax maya oo qof walba oo ciyaar ku cusub ama profession ha noqdo ama meel walba ha ka yimaado marka uu gelayo garoonkii adiga aad ku baratay oo ahaa ilaa 2,000 oo qofood 1,000 qofood laakiin marka aad 85,000 oo qofood iyo 90,000 oo qofood aad u timaado wax kala weeye waayo waad is ilaaweysaa xataa inta badanna qofayna ku dhicin ya ma jirto xataa kuwa qaranka u dheelo waxaa laga yaabaa say Premier League u dheelaya markay tagaan qaranka ayagoo ku badan luminaya ama waxyaaba la leeyahay qofka kan maanta ma fiicneen runtii qof walba ku dhacdaa laakiin xamar markaan nimid markaas stadium Muqdisho oo dawladii dhexe stadium Koons haday ka dhigi lahayd xataa waa roonaan lahaayeen dadka laakiin stadium Muqdisho 80,000 oo qofood u qaadaa marka ilaa dhulkaana la fadhiyay oo firiina waa lagu daawanayay waa garan kartaa looma kala harin marka goolkii baa ka baxay oo banaanka istaagay waa gartay ciyaartii koowaad marka ciyaartaas markay ciyaarteen maxay ku dhamaatay ciyaartii abdi waxaan rabaa dadka inaan u sheego kubadii ugu horeysa aan soo qabanay shawqan ka soo bixiyay waa gartay oo macallin Farayare ayaa laga dhaliyay Jowhar ayaa la dheelinay macallinka qaranka Soomaaliyeed Jowharna markaas banaadir bay waxay ka soo dhalisay 3 markana 3 ay ka soo dhalisay lama celin karin waxay ku dhamaatay anagoo aad u liidanay runtii sanadkaas aad baan u liidanay oo hatta daroon ku soo baxnay beedhabo hatta dacwo aaga soo baxnay waxaan jeclahay inaan badinaba sanadkaas oo dhan 3 ciyaarood bareejan ku soo wada bixinay Jowhar oo tayalaheed ayaan 2-2 ku dhamaatay dadkii kubadda fiirsanay oo dhan waxay raayeen labadan koox ayaa final imaanayso ciyaartaas kadibna annagii ayaga final isku nimid oo hal Ibrahim koobka ay qaanay sanadkii ugu horeysay oo aan ku guuleystay waa horyaalka gobolada Soomaaliya ciyaaraha gobolada waxay lahaayeen xiiso gaar ah oo ka duwan ciyaaraha kale bulshada Soomaaliyeed gobolada kala duwan isaga imaanaysay qolo walba gobolka ka yimaadeen bay taageerayeen waxyaalaha qabyaalada iyo cunsurnimada laga hortagay kamid ahaydoo markay dhalinyaradaas yimaadaan kubadda ciyaaraya dad bay la joogi jireen oo ku degi jireen marti gelin jiray haddana xiiso gaaray lahaayeen mararka ugu xiisaha badnayd waxaan maqaal igu ah waqooyi galbeed iyo Kismaayo markay ciyaarayeen Jubbada Hoose maxaa ka xasuusta waqooyi galbeed iyo Kismaayo hal sano iyo 2 sano ma wada ciyaarin inta badan waa la wada ciyaarayay waan is arkayay waayo 8 kooxood oo 4 xag ka soo baxday ay ku jirtay waqooyi ayadii Burco runtii gobolka Jubbada Hoose waxa aad u dhibi jiray Burco Hargeysa ma ahayn hal sano naga fakatay halkaas ay koob qaaday laakiin inta kale inta oo Kismaayo ka badin jirtay waxay ahayd Burco runtii waxa aad sheegtayna waxay ahaayeen wax oo aan la ilaawi karin waayo hadda dad baan aqaanaa oo liigu dejiyay 1981 gurigoodii sida walaalkay oo kala waaye isdhaxgalka bulshadaas waxay ahayd wax aan la ilaawi karin oo dadkii inay walaalaystaan ayay noqdeen way soo bixi jireen Kismaayo imaan jireen markii iskuulka la xiro bil bayna la joogay ama 2 bilood ma dareemi jirin inuu qof ajnabi yahay waayo waa qof gurigiisa aan ku koray oo aan la joogay bil dhan ayagoo oo gobol haddana u dhashay ayaa adiga markii lagu keeno adiga ay ku taageerayaan way leeyihiin wiilkeena koobka soo qaaday wiilkeena ayaa badiyay ciyaaraha gobolada wallahi waxaan ku tilmaamno ma leheen hadda kuwii ugu dambeeyay xataa aad bay u fiicnaayeen run ahaantii taariikh fiican oo aan la ilaawi karin Soomaaliya ku lahaayeen waa gartay waa ku soo noqon hadii la yiraahdo khalka telefoonada rabaa dadka ku jira fursad si hadii la yiraahdo waxaan suugaynaa oo ka soo qayb qaadan doona barnaamijkan dad fara badan oo idinka bulshada idin kamid ah iyadoo Cabdixaaq si toos u yaqaanaba oo ka mid yahay Maxamed Barre oo Minneapolis Mareykanka inuu joogo aan jecelahay oo kasoo gali doono dhawaan laakiin marka horeysa qof kale oo ka horeeya ayaan soo dhaweynay khadka ugu horeeya fadlan aalada naga daawanaysa iska baqti soo dhawow ciyaarihii gobolada Cabdixaaq
mini footballka waan u gudboon doonaa dhawaan haddii ilaha yidhaahdo laakiin soo dhawo qofka horeyso magaca magacayga waxaa la yidhahdaa walaal aadan cabdiqayliye aadan sakaa kuwan ayra guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ku-xigeenka jubbaland cabdi waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo aadan baan ugu dhahaa tirso amay waa ka xumahay gudoomiye aadan buu yirsan aadan cabdiqayliye aadan kusoo noqo kumaana maqligu kaa go-ay fursad kale aan ku siinaynaa qof kale ku jaalay inuu aadaya baan eegno halo may maqashaa waaku maqlaa cabdixaafid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وكم ولد وأنا اللي هذا محمد علي محمد حقي جوكا waxaan joogaa London soo dhaweynaya waa ma santahay ninka odayga ma sha Allah taariikhi hore waayo ayuuna xasuusiyay laakiin dadyowa noocaas ma sha Allah oo dadkii hore oo qaranka wax u soo qabtay oo inaad barnaamijyada inoo keento waxa weeye waa arrin fiican waan ugu mahadcelinaynaa asagana waan u mahadcelinaynaa marka sportska dhab ahaantii horta ma laha wax la yiraahdo sportska waa inta waxyaalaha kan isdhexgalka ummadda keena weeye aad iyo aad qayb wuxuu ka qaataa amniga isbarashada walaaltinimada wax diin iyo maxaan ku yiraahdaa qabyaaladii wax lama aha marka waxaan odayga ka codsan lahaa wadankii hadda in muddo 30 sano qab iyo dib uu ku jiraa marka maxaa uu ku celin karaa oo laga faa'iideysan karaa in wadankii dib ugu laabteen oo dadka inay taariikhaha iyo ugu sheekeeyaan oo ay sameeyaan kooxooyin iyo sportska dib inay ugu soo celiyaan baan ka codsan lahaa Cabdixaaq maxamed cali aad u mahadsantahay su'aalaha noo soo socday ka mid tahay dabcan waa la soo qaxay maxaa tala maxaa la qabanayaa xaggee xaaladda sportsku maraysa horey cabdi bilaa ayaanu halkaan ugu wareysanay inkastoona stuudiyahan joognay magaalada dhexdeeda meel aanu joognay maxamed ismaaciil oo halkaan aanu ku wareysanay barnaamijka arrimaha bulshada insha allahu tacaala mar walba sports keliya ma siin karna laakiin markaan fursad u helno ciddii mudan in lagu marti qaado waanu u yeerinaa adigana kaaga mahadcelinaya cid uga mudan cabdixaaqna caawa oo london ila joogta garan maayo waa hagaag mahadsanid layn kaloo ku xiga haddaan u gudubno halow may maqasho السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوري والله المقعة؟ أنا واحد لها محمد داود علي عبد الحق وحاول سلامة يا عبد الحفيظ النور سلامة. أبدو كسر ولا محمد والله سعتي برامج. محمد داود باليرا والله محمد داود وحن كسو هذا يا كينيا نيروبي. فاكسور ولا محمد محمد عشان أتر هذه. عبد الحق وسلامة يا عبد الحفيظ النور سلامة يا. عبد الحق وليد السجارة نسوقونه ساعة إنما بيننا ما قرأت. عبد الحق جهله هنا يراهدو. عبد الحق ودكتي هرات هاي يرتوي نظيف كهيد وقبائل كيوحة كتوجات هاي. مركا وحن قيدينا هي كلية. وهي أردت المذهبي يو خطرت هذه يو بجناشة هذه. ma Soomaaliya oo dhan baad gaarsiinaysaa mise gobolkii waad kula noqonaysaa oo aad intaasoo sano ciyaartoy ka ahayd oo Jubbaland labadaa keliyaan weydiinaya waa hagaag aad baa umahadsan tahay thank you waa mahadsan tahay maxamed daawud waa saaxiibkay isku xaafad baan ahayn maxamed daawud oo aad iyo aad ayaa umahadsan tahay run ahaantii Jubbaland wixii aan usoo qaban karo labadii sano aan joogo Soomaaliya oo usoo qabtay sida ogtahay adigana xiriir baan ka soo dhisay haddana qarankii ayaan wax u qabanaynaa oo Somali mini footballkii waad ogtahay vice president ka ahay sidaas daraadeed waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhan wax u wada qabano insha Allah dadweynahana inaysan aan ku ekaanin meel kaliya oo aan Soomaaliya meel walba caruurta joogaan in aan waxa aan naqaano aan gaarsiino insha Allah waa hagaag aad u mahadsan tahay arrimaha ku saabsan in dadkii taariikhda sportska kulahaa magaca inay dib wadankii ugu noqdaan oo wixii burburay wixii laga hagaajin karo la hagaajiyo sportsku qabiil ma lahan maamul gaara ma lahan waa maskax iyo jir caafimaad qabo weeye inay ummaddu isdhex gasho ma jirtaa group aad samayseen ama qurba joog ha ahaadaan ama dalkii gudihiisa ha ahaadaan
oo doonaysa inay sabato bixiso isboortiska Soomaaliyeed meeshuu maanta joogo qurbaha ama dhulka gudihiisaba ay kasii horumariyaan oo hore loo sii socdo runtii aad iyo aad ayaan umahadsantahay cabdi su-aasha uuna weydiiyey walaalkii su-aal meesha ku jirta waaye waxa waaye Soomaaliya burbur fara badan ayay gashay wax walbana way dhumeen run ahaantii qurbo joogtana oo dhan ma aha inta aqoonta leh ayaa loo baahan yahay sida loo dhisi lahaa xiriiro adag adduunkan aan ku nool nahay waa xiriiro badan yahay fundraising fara badan dhaqaale fara badan ayaa loo geliyaa sportiska waxa kaliya oo nabadda keenaya waaye runtii group oo qurbo joog oo tageen goboladoodii iyo xamar naftirkeedii oo wax dhisay way buuxaan runtii aad iyo aad ayaa imika loogu hanweyn yahay in Soomaaliya dhanka sportiga laga samata bixiyo oo hadda anaga xiriirka aan dhisnay oo legend waaye dad kubad soo wada dheelay meel walba adduunka ay ka joogaan oo ku magacaaban yihiin ruug cadaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxa loo soo wada jeestay hadday noqon lahayd Olympic hadday noqon lahayd kubadda cagta hadday noqon kubadda basketka kulli waxaan rajaynaynaa insha Allah in oo Soomaaliya sidii hore u ahaan jirtay isa kasii wanaagsan inaan gaarsiino insha Allah وهذاك وأكون مدعينا دي محاولة قلنا خلصت التلفون هذا دي لا يرادو قف كلو كحيل هلا وما يبغى شغله وهذاك وأكون مدعينا دي محاولة قلنا خلصت التلفون هذا دي لا يرادو قف كلو كحيل هلا وما يبغى شغله الو والله تي في جس كبختي واكم مغلا سولو مقعه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عبد الحفيظ السلام يا أدو كوسلو واكم نكاسو أنا عبد الله اللي يراد هذا تي في جس كبختي سيدو أنا كودو عين له عبد الحفيظ علي هو عبد الله وأنا اللي يراد ممكن واقرت سولو عبد الله ما حاجة عشان تلاقي أوكي هو بختينا يا ثانك يو والله السلام يا هرت وكاقا سولو كسمايو السلام يا ولد وكاقا هرو قدقل اوكي ليه هو وحبا يقول صور نغونا ايام مركا الحمد لله عبد الله والله الوقت فرا بدل ما هايستو تي في قاقا بحيا حقنا وكذا يسنسا اوكي 1983 84 كمية ايات ما اغان اي مارتي كسماي اي كرومين هيران او اي كوبا حدي مروديكي قونها اللغي ويي ان حوها هاي بورتيري ميو اها مسا او عيار ايو دادك مارتي رحدا كعيار ايو اي سؤال ارقا معناها مروديكي قونها اللغي ويي مركز مغشو وشو هيران بين راضي editrigi ediforki labada mid ay aad ma aqaan marka ii weydii xilligan goalkeeper buu ahay ma samahay waa mahadsan tahay marka horeysa eraygan baxay Cabdi Xaq muxuu ku baxay aduu jiro waxa wanaaga miyuu eray ku baxay mise eray wuxuu ahaa si kale oo qaldantiin maya xifaatlabka sportiga waa leeyahay ciise oo ka qori jiray qaybta sportiga ayaa karakateeris ku suubin jireen marka marbay waxay suubiyeen maroodi oo dadkii dhan laayay oo goboladii marka qofka dhulka jiifo goboladii magacyadooda ka dhigi jireen hiiraan waxaa dhacday 84 ahayd anaa u saxayo waxay nooga badiyeen 2-1 markay nooga badiyeen ayaa joornaalkii hiiraanna caan waxay ku ahayd qoonaha kismaayana maroodiga marka waxay ku soo qoreen maroodi qoona laga kari waaye wax kale xumaan kale ma ahayn oo calanka oo ay wadato hiiraan waa qoonihii waaye ugu sawirnaa ha kismaayana waxay wadatay maroodi ku badlaadayo marka maroodigii qoonihii buu laga kari waaye saasay noogu baxday adigu goalkeeper ma marka ha 81 ilaa 88 ana ahaa goalkeeper hagaag reehira waa maqlaysaan waxaad ku dhigteen rex waayo
sideetaniyadii waa mahadsantahay cabdillah adigii su-aashaada thank you intaan khadadka teleefanada u gudbin fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ilaalisaan nidaamka barnaamijku ku shaqeeyo inaad tv-ga iska baktisaan si aan dad fara badan fursad u siino adiga laftigaada aan isku maqalno aan kaga mahad celina qayb qaadashadiina qof kale ku xiga halow halo السلام عليكم calaykum assalam waraxmatullah soo dhow walaal والله انت ما وناكسن تاعي aad baan u canay alxamdulilah magaca walaal انا ما اعرف والله عبد الله cabdillah hagee joogtaa والله هركسن على الله aad baan kuusoo dhaweynaa waana kaaga mahad celina xilligan dambe inaad hargeysa naga soo garaacaysid maxaad jecesha inaad tidhaahdid والكلي واحد دون إنان الأمهات في عيارتهم عادقنا نقول هذا اللي هو برنامج وناكسن بالله aad baad u mahadsan tahay anaguna waxaan kaaga mahad celina qayb qaadashadaada iyo daawashadaada inaad weliba maaragtay jeclaysatay inaad nagala qayb qaadid عبد الله انت انا محبان هذه waxaan qoran lahaa oo ugu mahad celiyay hadii jeer barnaamijyada ayaan aad u daawadaa wana barnaamij runtii aad u wanaagsan oo bulshada wuxuu taraa waa gartay aad baan kugu mahad celinayaa dhiiragelin bay noo tahay anigii tiim badan baa ka wada shaqeynay laakiin dadku inta badan anigay dhahaan waa ku mahadsantahay laakiin ogow dad badan baa igala shaqeeya waxaana mahadda dhabtaa iskale ilaahay ka sokow adiga iyo dadka kula midkaa daawanaya dunida daafeeda jooga cabdullaahi thank you cabdullaahi from hargeysa waa mahadsanta wahagaag xaq markaad adiga dib kuugu soo noqdo ciyaarihii aad ka qayb gashay intaada ciyaaraysay labadii ciyaaroodoo isleedahay tanano way kuugu dhibka badnayd tanano way kuugu farxad badnayd noo dulmar runtii ciyaarta laba jeer la isku celiyey waana garan kartaa hargeysana sanadkii ugu horreeyey ay qaadaan koob ayuu ahaa koonfur iyo waqooyina siisoo la saari maayaan dhihi jirna annaga ayagana waxay dhihi jireen sankadhuudhi qaadi maayo ma garatay xifaaltikaas ayaa jiray xumaan ma ahayn yani waa la caafimaad qabay sanadkii siisoo way saareen koobkii waa tii hargeysa la geeyey 85kii aan koob ka qaadnay kismaayo markaan tagna waxna soo dhaweeyaan weynay waxay yidhahdeen dadkii reer kismaayo annaga koob ma rabno hargeysa inaad kasoo badaysaan rabnaa war hargeysa ilaa iyo 70kii markii la bilaabay ilaa iyo sanadkii lasoo dhaafay marna waa ka badinaya marna waa naga badinayeen maxaa dhacay markaan laba finaal Ismail dheeleen hali every aga badiyeen wax saalan ma ahayn runtii markaas aan nabcaado laakiin iminka waa la jeclaaday waayo awooda meesha taalay masha Allah ha sanadkii ugu farxad badneedna 86kii ahayd markaan ka badinay gobolka Banaadir oo halftam laba gool naga dhaliyeen oo nin difaac aadna ugu fiicnaa laba yellow card qabay Maxamed Abshir Ali Maxamed Yare oo ciyaarta naga fadhiyay ciyaarta ka horeysay laakiin si fiican u raacay labada iyo Ibrahim Kambi ku dhacday final waa tahay madaxweynihii iyo wafdidiina way joogaan koobkina meeshu yaalaa markaan soo galnaa saddex dhalinay farxad taasa igu farxad badneed oo aan ilaa iminka aan xusuustaa wahagaag waxaan jecelahay sawiradan hadda shaashada saaran soo bixi doona sawiradan markaa aragtay maxay ku xasuusanayaan runtii sawirada tan waaye sawirkan hadda waa 70meedii waxaa ku jiro shaasha ku jiro cafiifa ku jiro bin shaakira ku jiro oo diinliya ku jiro macalin khariidiya ku jiro golhayaha dhinaca soo jiro barkaan waaye dad fara badan oo diini nuura ku jiro ciyaartooy fara badan intooday hadda nool intii dhimatana Allah u naxariisto waa qolooyinkii afarta koob oo hore soo qaaday waaye aad iyo aad ayaa waaye xasuusinayaan wali xasan hadda nin kubadda haya waa xasan cafiif diini nuur ayaa ku xigo kor waxa taagan shiino sidoo kale shaasha taagan oo wiil yar ah
nin kuwa taagan oo bidixdeena ninka madaxa xiiran waa shaash kabtan shaash waaye oo maasha allah waa kana wuxuu ahaa isla sawirkan waa 1982 finaalkii waaye ciyaartan waxaa la dheelnay banaadir hal iyo eber ayaan kaga badinay habeenkan koobka annagaa qaadnay waa idhawankii aan qaadnay ee dhituugii ku jiraan Yusuf Khadar waaye ninka dhinaca ninka cadna waa Kuzungu allaha waa laacibiintii ugu fiicnaayeen difaacidii ugu fiicnaayo soo maray ka dheela baalasha kanna waa 82 waaye waxaana ku jira Axmed Cusmaan Geedi duumay Allah u naxariisto Umar Furuuro Hamadi Maxamed Shariif Diin Mahadi Macalin Khariidi Yusuf Khadar iyo sidoo kale Carabi ayaa ku jira bulshale agartay marka ciyaartan waxay ku dhamaatay ciyaarta hal iyo eber ku dhamaatay hal iyo eber ku dhamaatay تودي وحكجرة عفيف إيه مباكجرة بن شاكر إيه شاش يدين نور إيه قلوين آد نوجو وينا وان قرن كرين وكم سقال بقول يتدواتني كوبي واحد تاريخ وين تاريخ وين يونيفرسال ميلك إيش عم بلاي أبنا ما شاء الله ما شاء الله كأنه واسدتني أفرتي واي وسنة كي هرجيسنا قاعدي وحنوتي دق مع دق إيو بركان أرتود أنت هوس فردوا حواي كوزونجو أنا عبد الواحد تمن فرس عبد السمد محمد موسى دومي الله ونحرست عبد جابو عربي عمر فرور محمد شريف إيه حسين عيسى إن كنا عندنا أحمد عثمان جديوها سديتي لبضي ضد كوبكا كسماي وقادو كجرا وفينا الكعياري وهيك حبان كسر تقولوا تاريخ واسفق أو كوسو وردويه لكن مركي هدارتان ugu dambeysay Australia ayaan deganaa 6 sano 8 sano ugu dambeysay Australia ayaan deganaa haddana Australia ayaan ka imid markaan Soomaaliya aaday Australiana waa wadan horumarsan sida Ingiriiska oo kale ah sportiga baan ka galeynay oo aan ka wadnay marna macallin aan ahaa marna waa iska shaqeysanaynay waa gartay wahagaag waxaan jecelahay markaan akhadka telefoonka soo geliyo Maxamed Barre oo asagu Mareykanka jooga oo aan jecelahay inuu maqlayo Maxamed mana maqashaa وعليكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa gartay soo dhawow Maxamed Cabdixaaq studio fadhiya waa ku maqalnaa maxaad ka xasuustaa Cabdixaaq si fiican aan ku maqalnaa Cabdixaaq weela fadhiya waxaad ka mid tahay dadkii Kismaayo ku soo barbaaray maxaad ka xasuustaa ciyaartoydii Kismaayo iyo ciyaarihii gobolada والله إني هو وأنت مصور هذا يوم فرحت هاي opportunity كان ICC يضع عبد الحاق وجوز بيشان legend that I respect كمان معناه وهو عن كفر الدين وحضور يقول يقدر كمان توفيت عبد الحاق يعني يعني marka waxaan ku ayaamahan ka warqab Kismaayo inay tahay macnaha waxa waaye mid ku dhashay kii imaada macnaha waxa waaye safarku imaada kan noqda inay macnaha ku dadacagta ama martida gooniga mid ugu horeysa ee niyadda ay ku hayaan waxaan xasuustaa hadda ka hor anagoo yaryar oo badacalli ku ciyaarayna oo kuukii oo koombe oo u imaaday inay ruuxayd ka dhigaan meesha inay meesha xeebta noogu imaadeen وتاريخ وين تنهانتنا وتاجر صورته وعلى إيه وقفت اسمه كي ما بين الكاميرا وين الدنيا دربين هذه الأكيد هذا وريك اسمه أو لو أنت بريك اسمه لماذا تقدر تذكر اسمه هو يذكي مش كي ما هذا وحيعرضوا عين هم ذكي الممر يعبد حبي الممر وحيعين
dadku siiyo dadka qiimaha ciyaaraha meesha dadka ku mashquulsanaayeen waxyaabo kaleeto kismaayo waxay ku mashquulsanaayeen booniga iyo macnaha yuliska macnaha iyo dhalinyarada isdhexgalkeeda iyo run ahaantiina waxay ahayd waxa loo kala deganaa xaafad xaafad qof kasta macnaha wuxuu xaafadda booni ka ciyaara xaafadda degan yahay madaxaadna waxaan rabaa inaan u sheego suuq mugdiina deganaa zoonkaasayto inuu xasuustay kalamaha allahu naxariisto dayax iyo zoonkaasayto macnaha godkooda deganaa thank you. brother. السلام عبد الحق. وأنكم بقى عبد الحق وأنا ما زلت. وهذاك كاسو هو محمد برا أو ملاك كان قصو وعي وهذاك أنت أكيد ما حنجي على هيا دي له هذا إن الأوجبه قد كانوا كحية تلاصم. السلام عليكم. Hello. لين كانوا كحية ما يمغش علىه. السلام عليكم. عليكم السلام سولو ولا. ما مغش عربا بشو. أصلاً عم بقول مغرى عربا بشو هذا ولا مغش سوما. شوف يا عم هو مغرى عربا ولا بس إيه. والله عاكف بالعربا يجي هل. TV عم هو مغرى. TV ayaa dharniyo si fiican isku maqalno leenka hagaajiso lagu soo celiyo waan ku warabi doonaa aad waa maasantahay waa hagaag abdixaq intaan la qaybta telefoonada dib ugu noqonin Somali mini football bad vice u tahay Somali mini football maxay tahay yaa bilaabay xagee xaaladeedu maraysa rajada laga leeyahay waa maxay iyo goolka xagee tagteen xagee wax maraya aad iyo aad ayaa mahadsantahay cabdi runtii Somali mini football waa xiriir la dhisay ilaa iyo 10 bilood ka hor oo Soomaaliya ku cusub adduunkana wuxuu ka jiraa ilaa 3 sano waa kubad cageera la yiraahdaa waa kubad garoonkii nuskiisa ay tahay ciyaartanna waxaa bilaabay marka hore Latin America ayaa laga bilaabay Mexico iyo Colombia iyo qolooyinkaas Europe-kii ilaa 32 dawladood ayaa hadda ciyaaray oo Hungary ku dheelay anaga nagu cazumay xiriirka Soomaaliyeed ee kubad cageeraha wuxuu ka bilaabmay oo laga furay waxa xogeeyay guud anigoo gudoomiye ku xigeenan ahay gudoomiye ku xigeen labaad oo waxa jiray Yaasiin Cariif xogeeyaha guud ee xiriirkana waa Dr. Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi waxaan ku bilownay gobolada Soomaaliya oo dhan run ahaantii markii ugu horeysay waxaan bundhig aaga dhignay gobolka Jubbada Hoose magaalada madaxiisa Kismaayo oo ilaa wasiir dawladda federaalka iyo xildhibaano iyo wasiirooyin fara badan ay ka soo qayb galeen oo lagu doortay xiriirka ugu horeeyay oo la oranayay Jumfa waxa ku xigay South West oo afgooy aan ku qabanay xafladeeda oo lagu doortay Abukar sidoo kale waxaan ku xijinay Jowhar iyo Balcad oo maamul fiican laga dhisay oo ilaa imika ka shaqeynayo Puntland sidoo kale maamul ayaa ka jira oo Xuseen Barwaaqo haddaan u soo laabto Jowhar ilaa 2 jeer 3 jeer ayaan tagnay tournament fiican ay qabteen magaalada Balcad la leeyahay waxay casuntay afgooy iyo Jowhar oo ay tartan aan ugu dhax qabanay isla mar ahaantaasna 27 sano kadib markii ugu horeysay oo riwaayad lagu dhigo Balcad ayay ahayd galabtiina degmooyinkii ayaa ku dheelay habeenkiina meeshaan barinay oo riwaayad ayaa lagu dhigay haddii kubad cageeraha Soomaaliya aan ka soo hadalno ilaa awdal ilaa iyo Jubbada Hoose uu ka dhisan yahay wayna wada shaqeeyaan xiriir aad u maleysay dadkii inay aad ula qabsadeen waayo garoon weyn oo sidii footballka uma u baahno 11 size wixii ah waa football laakiin wixii ka yar waa mini football rag fiican oo بيولي كل legend وحي أها معلمين معلنك أول رياض أو قرنك لو مجعبي ومعلن سكوت
oo aad taqaanid ilaa iyo 1969 qaran dheelayay sidoo kale waxa joogo Axmed Culusow oo isagana legend ah Cabdilatiifki oo horseed legendi oo dhan meel kasta ay joogaan looma kala harin haday noqon lahayd Mareykan haday noqon lahayd Yurub haday noqon lahayd Australia iyo Africa xiriirka shaqadii fiicneed uu ka qabtay Soomaaliya ayaa dalkan Ingiriiska aan joogno London kaliya ka dhisan yahay 20 May aan soo dhaafnay wuxuu ahaa sanad guuradii saddexaad ee xiriirka من راس عسر إلى راس كابوني ولا جودة ديلي هل مالنا الله وضع قبتي فيسبوك إذا عادية سيداين قدومي حرير كبد عجراء دون كايستو مستر فيليب جو وحو عزومات توصى وقدوميها نوسو مري ويري وحربا ددكي كشقيني حرير كميني فوتبول كصومالي أبال مرن أهان إني مادان أي فيرسدان عياره laga qabtay lagu qabanay Hungary oo 32 dawladood Yurub ah meesha ayaan nimid 4 qofood ayaan ahayn xaj aadan oo duruufo isaga ku timid awgiisa ehel ahaana oo naga baaqday laakiin garsoori aan geynayna wuxuu noqday garsoori ugu horeeyay Afrikaan oo ka qabto ciyaar Yurub isla markaana qabto ciyaar final ah waa ka garsooraha marka waxa la Maxamed Mooge Isaaq waa gartay سؤال برهنا كويدي أجعلنا سوق وابتخاذ تلفون وهذا بحربنا كلها الله نكوسو دايو مجا سبورتس مدتك عياران لها مدتك تاجران لها مساعد والبو عيارتها شيء كرت ان سبورتس وفر بدنيا هاي تاجرة كان تاجرة كلي واسكو ودمد حتى قفكي مقلو او على ودليه سي سومالي هاد oo اذا عد بال laga maqli jiray anaga cidna taqaan male hal ida cad ba ku taal Soomaali raadi Muqdisho ciyaaraha gobolada markii la soo saaro maraan Hargeysa tagay yarkii gaarigii igu waday inaan saaxibana Cabdixaaq iyo uu yaryahay gaarigu ka dagtay magaca wuxuu raadi aan ka maqlay ma arkin marka sports كنفتركيس حتى الراديو dadka dhageysta qalbiga uu leeyahay وهذا أبو كلنا وحنا تبين لنا خليك تلفون فضلا ضد من بكجرا سوكوبا سولو بدبي إن شاء الله تعالى رأيي نتوسكا كوجهان وأي قروح بدنا ذلك إنه هو يصومري ياره يصدق ذلك يلجن كان عاون رفضيه وأصلا كم لها نذكر ياره سكيب كان جري جارهان الله أبو أسمع حقيقة يا أوصل دلدلو أوك سودو هنا والله كيف أقول سلام أهلا وسهلا في أنتي سودو مع جاتنا تنادي عبد الحق مرك قوة والسلام لكن إلا هذا مرك عدي عمك شيء به مرك عدي وحاول هذا يا أنا خوف ما خاد إلا إنه عديبه ويا ابن خير إنه وايد سبح لي إذيك ولا اللي جسري كسماي أنا يكون حكنا وبلين هذا قلدنا runta saddex qaade laakiin xamar afar qaade hadda hadda leemo laakiin dagaal koor saddex qaade idinka kismaayo ku xigteen saddex qaade ma wala ahi kismaayo naga ku xigno idinka ku xigteen ha thank you very much وما سنت عبد الله والله يوك سلام thank you عثمان دلدلو استاذ هو لندن وهذا لين كانوا ku xiga hello aad baan kuu soo dhaweynayaa maxamed soo dhawow maxaa jeceshadaa tirahdeen runtii marka ugu horeyso cabdildiif oo ku salaamaya adiga cabdixaafi adi iyo golhaya cabdixaaq waa kaa qaadnay maxamed t v-ga ha dhegeysan cami iska baktiyay oo dhegti nagala soco waayahay cabdixaaq runtii maxamed from baydhabo oo ka go-ay haddii fursad aad heshid nagu soo celi waa maadsantahay maxamed thank you waana ka xunaa inuu kaa baktiyey khad kaloo ku xigaan u gudbanaa iminka hallo soo dhawo walaal magaca walaal magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud abukar waxaan kaa soo wacay magaalada kismaayo ma garat
وأقصد ويا كان حقلي معي سراع سي محمد ما دام يرفض أنا يسوي واحد سلاين كنا وحوجا يلا شرحهم كم عليه الدليل أقصد أنا يونيفرسيتي كان صعب العالم نواس العمي الطريق الدنيا إذا عداه وحمله استمالي هذا الإنسان العابه مركب وحلوطة هي شيء حاجات يقول لو الدليل كنا قاعدين أبي عباي نفسي عن جالسين صوماليا لقيتش هذا أو ما سنت أبي هذا محمد تعال ما شاء الله أوتيل كان أوتيلنا أديت هذا ما سنت محمد وكان مع العلاقة بقال شو هذا حق سؤال كويدي قال إذا كفت وريكس ما يدتي وحول باشي كفت البورس كوفرية كسماعي مركب مقص الله وحنا مسك حاول صور عيس عبد الحق على اللي وحكى له بجرا المئة واجرة هاي سودو سعر أجرة waxaa imaanayso waxaa la oran jiray baafay ka fiirsadaan kismaayo بريق دنبان أو تكنولوجيا دي تي في دي أي ما دي سترلايت أيا مركو ورس تي في أركتو ضدك حيوم لينا يعني إن وياهي بيو أقرت مركا waxaan dhihi jirnay dadku waxay dhihi jireen baafa laga fiirsanaa ama laga reen kara dadkan sixir ay wataan wixiina waxay ahaayeen aqoon ay ahayd oo sixir haddii wax ku qaaday indii wax ka sixir badan mala hal koob adduunna ma ay qaadin kamaba ay soo qaybgelin weligeedna ma soo bixin marka dadweynaha intooda badan oo nugu xaman jiray على عبد الحق يسحرك يا عبد السحر كبل مقادين فرسمة المقادين ما تنتهي الله يكرمك حياة وجود بينا إن شاء الله ونجرب بفسين أنا جو وركين أريانيو قف كلامك حياة حاجة جورجا يقولنا كاس وعاء أقصد ولا ما حاجة عشان تلاقي السلام على دمانتي وحن كترسنا لبتكي وحاربنا كوباديرها عبد الحق وهداد ووضوضي وحاج آذن يو جروب كاس أنا كنا حنجعلنا إن نرير هولا دي أنا إن أدو صور لسنو كوباديرها مركا دي وانا دي رجل سنة ودي رجل لنا هل كان أنا نعرض كلس دينا إن شاء الله دولة مردو وانوارك دون دان قرومة شيخي هذا وما سنتا from Netherlands إن شاء الله تعالى أنو غاندونا ماشي قدام بيسا الله إذن كلامي ما سنتا ولا thank you الله ينكرم كحية هلو هلو شو دور المجاعة كمان حاجة أنا حتى قليلية عن قطار الإسماعيل هذا شو دور هاي بدون كذا كي سنتاي waxaan rabaa in cabdixaaq waa nin kasoo jeedo gobolada jubbooyinka ama jubbaland ma dhamaystiraysaa xilkan xiriirka kubadda cagta jubbaland state mise caliiraha ku ekaanaysaa ma maqash aad iyo aad aad waa mahadsantahay wuu ku jawaabaya hay cabdixaaq soo runtii jubbaland state waa lasoo dhisay sida saxabkay aadan uu sheegay isaga guddoomiye ku-xigeen ah waxaana jirta in hadda maamul cusub la dhisi doono haddii aniga wax laiga baahdo cabdixaaq ahaan diyaaraan u ahay oo mujtamaca dhan jubbaland keliya maaha cid walba oo aqoonteeda u baahan diyaaraan u ahay maanta international oo t v aan fadhiyaa cid walba oo ii yeerato iyo cid walba aniga aqoonteeda u baahan diyaaraan u ahay asxaabteeda aan la shaqeeyana kama ay xumaanayaan haddii jago labaad aan helo oo waa way igu dhiirigelinayaan run ahaantii aadan waxaan rabaa in meesha maamula ka dhisan maamulka marki uu qof doorto uu soo magacaabo oo hadda xiriirka jubbaland oo kale la isoo magacaabo diyaar ayaan u ahay waa shaqeynaya markii horena waa shaqeynaya waa ogeed sidoo kale puntland haddii laiga soo magacaabo sidoo kale haddii hiiraan laiga soo magacaabo runtii inkastoo ay aqoontu ku fiican tahay nin walbo
gurigaaga laakiin haddeertaan heer qaranaan noqonay qarankoo dhan inaan gaarsiino ayaan ku khasbannahay aad baa mahadsantahay aadan waa kaaga mahad celina inaad ku soo celisay mar labaad oo nagaa qayb qaadisay thank you layn kaloo ku xiga waxaan fursad siinaynaa ilaa 3 qof oo keliya dabanoon soo afjarayna haddii la yidhahdo qof kaloo ku xiga halow السلام عليكم. calaykum asalaam walaal soo dhawow magaca السلام يا عبد العزيز مقعي وسعيد وحن كسر الله نور. الله كسي الله ولا كلا قليل كلا نصيني ولي بس saddex su'aalo aad u muhiim oo maartay faa'iido badan adiga ku yeelanayso waan kaaga mahad celinaa laakiin tan koowaad oo nasiib marka hore tan koowaad waxay tahay maartay 86 markaad koobka qaadeen waxaan ka mid ahaa maartay mukayga makaan buu ku soo dhaweynaa idinka oo ka wala wataa maxaa taas waa mid su'aasha labaad waxay tahay maartay goolahii qaranka Soomaaliya Xasan Xamaama markii wadanka Sacuudi Carabiga kooxda ka tirsanay ay ku dhigtay yireen maartay waan iibsanaynaa ma wasaaradda u diiday oo isboortiga diiday mase waxaa diiday Maxamed Nuur Shareeco oo uu istagay naadiga horteed saddexaadna waxay tahay ragga legendka oo Ingiriiska joogo Maxamed ninka siteel leeyahay oo kale Dayson oo kale muqdisho oo ay dadkooda wax la qaybsadaan ay maartay u faa'iideeyaan qarankooda ama hadii kale maartay shacabka muqdisho ama hadii kale gobolada intay tagaan maartay u faa'iideeyaan Saciid aad u mahadsan tahay nimankaas aad sheegtay halkaan ma joogaan waxaan u maleeyaa Cabdixaqiim Xuseen afhayeen oo hay marka su'aalahaas ayay ku wajahayeen marka is hesheen baa u maleynaya waa mahadsan tahay Saciid su'aasha koowaad waa mahadsan tahay horta haddii aan ugu soo dhaweysay beerihi cambaha fiicnaa markaan koobka soo qaadnay su'aashii labaadna oo ahayd waxaan u maleynayaa Soomaaliya goolhayaha xamaama Soomaaliya waxay lahayd sharci iyo dastuur markaa u qoran ciyaartooy u diiwaan gashan xiriirka in uusan gadan karin ama xiriir kale uu aadi karin sababtii loo diidayna sabab ka timid dhanka dowladda iyo wasaaradda ay ahayd shakhsi oo sidii shareeco ma qabo in uu ayaa la diiday inay dibadda aadaan qaarkood dhuumashay ku aadeen marka dowladda ayay ahayd waxa aan ciyaartooyda iibin jirin mana uu jirin sida haddoo kale dhaqaala laga suubin jiray waayo hadday xilligan soo gaari lahayn waxaan qabaa cid walbaa sii deen lahayd amaadsantahay thank you shakhsiga kaloo ku xigaan gudubna markaan ahlan wasahlan calaykum asalaam soo dhawo walaal magaca waa cabdiqani oroloojo london ka soo hadlayo ay cabdiqani soo dhawo waa dhawahay waa mahadsan tahay cabdixafiid golahaye asigna sidoo kale waa mahadsan yahay waxaan rabay hal su-aal inaan weydiiyo gudoomiye ku-xigeenka kubadda cagiiraha soo dhawo waa dhawahay marka maadaama aan ognahay xiriirkan maadaama uu cusub yahay uu mar dhow la aasaasay ma wuxuu ku yimid doorasho dadka matalaya mise waa xiriir ayaga ismagacaabeen intaan rabay inaan weydiiyo thank you walaal aad iyo aad ayay umahadsan tahay saaxiibkii qaaliga ahaa runtii xiriir ismagacaabi kara adduunka kama jiro international communitygana iyo xiriirada ma ogolo in qof uu ismagacaabo xiriirkan doorasho ayaa dhacday guddigii iyo guddoomiyihii doorasho ayaa lagu doortay warqadihii iyo wixii oo dhan wasaaraddii isboortiga iyo world mini football iyo africa waa yaalaan insha allah mar dhowna saxaafadan usoo bandhigeynaa si qofkii oo haddii aad doonaysidna waxaad geli kartaa website-keenna oo ah Somali mini football oo aad ka arkayso original website aan leenahay caadi ah kaas ayaa ka arkaysaa inta xubnoodu ku kooban yahay iyo siday ku imaadeen iyo siday yihiin wahagaag waqtiga la eryanaya awgeed halkan haddaanu telefoonada kaga baxno maxaad ummadda Soomaaliyeed kula dardaarmaysaa waxaan rabaa cabdiyow arrin aad u fiican inaan inta ka sheego oo insha allah annagoo u ololeynay ka Soomaali ahaan Tunis oo ololihii qayb libax ka qaadanay
in ay ku guulaysato oo ay ku guulaysatay oo na siisay annaga in oo tartankaas abaabulkiisa aan galno afrikana 8 kooxood ayaa kasoo qaybgalayso bishii saddexaad waxaan doonaynaa soomaaliya oo dhan in ay wixii nasibood garan kara nasibood gareeyaan markii ugu horeysay taariikhda soomaaliya aan ka dhigno in koox soomaali ah koob adduun ay dheesho hadduu ilaaha yidhaaho qof walboo soomaalina duco iyo waana iyo waxtar inuu loo geysta insha allah waxaan jeclahay mahad celiya cabdixaaq ka qayb qaadashadiisa halkan oo in badan times inay ahayd waqtigeena eryanaya awgeed waxaan jeclahay intaan kusoo afmeelo cabdixaaq aad baan kugu mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa cabdullaahi saajid oo isaguna nala jooga stuudiyaha cabdixakiim fiqi weeye farsamadu iyo weliba tolwaayo oo saaga raana noo caawiyey axmed dahir afaar ayaa internetka qaybta kale noo haya cabdullaahi wiish oo mahad celinaya iyo cabdiqaadir cadaahi intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono waa anigoo cabdixafiin maxamuud jaamaca waxaan idinkaga tegayaa taqwada ilahi midnimo asalaamu calaykum waraxmatullah